hay-adda Sonsaf inay barnaamijkan maanta halkan ku qabanayso qaybihiisa dambana inay haweenka iyo dhalinyarada yihiin wasaarad ahaan annaka waan wada shaqaynaa intaanan anigu Hargeysa ka imanin baanu barnaamijkan laftiisa ka wada hadalnay oo isla qorshaynay inuu halkan gobolka yimaado sidii madaxdii igu horeysay halkan u sheegtay bini'aadmigu hadduu muslim yahay iyo haddii aanu muslimba ahayn ifka intuu ku nool yahay laba dariiqo oo qura ayuu maraa abwaankii gabayaagii Salaan Carabi baa gabay uu leeyahay wuxuu ku yiraahdaa dadku laba waduu qaadaya oo wadaahiya oon midina mid u wacan oo wadaagtamin waxa weeye waa laba dariiqo aan isu laaxanin ama ifka wuxuu ku joogayaa nolol nabadgeliyo oo waxtar iyo horumar uu ku raadsado ama ifka ciqaab ku joogaya labada wado maxaa kala astaynaya labada wado waxa kala astaynaya midina waa tan nabadgelyada qofkaasi uu meel nabadgelyada ku nool yahay midina waa ka maxaan ku yiraahdaayay aanu meel nabadgelyo aanu ku nooleen hadda imika haddaynu inaku reer Somaliland nahay haddaynu Soomaaliyadii aynu shalatay isku dawladda ahayn ay tahay haddii ay tahay geeskan Afrika ee aynu ku noolahay haddii ay tahay qaaradan Afrika aynu ku wada noolahay waxayna kala asteeyaan oo ina kala tilmaama oo horumarkeena kala saara sida ay dadku nabadgeliyo dalalku ugu kala nool yihiin mawduuca maanta laga hadlayaa waa mawduuca nabadgelyada wasiiradii ugu horeeyay ka hor sidoo hadartii sheegayay muddo ka hor waxaan halkan u joognay aniga iyo isaga iyo qolo badan oo wasiirihii arrintii nabadgelyada labadii dowlad ee oogadan laascaanood muddada door ay shaqaaqada ku kala dhex socotay hadda maantana waxaan u joognaa tii magaalada gudaheeda iyo labadan walaalaha ah ee halkan doodida door horena ay wax ku kala gaadheen maantana arrintoodii aynu wadno bal marka ugu horeysa qoladan jaamac siyaad waa kuwii sheegay inayna gogashii nabadda dhigayaan qoladii kalena shalay ka soo jawaabtay gogashaa nabadda walaalahayaha dhigeenana waanu ogolahay waanu imanaynaa waanu ku waafaqsanahay ilaa iyo garaadkii arrintaasay soo sheegeen ayaga waan ku hambaleynaynaa shalayto cid baa naga joogtay annakoo wasiirkii iyo xalintii ka yimaadeen ataash iyo jananka ilaalada xeebahuna shalayto way u ambabaxeen marka arrintaasi waa saasay ku soo gabagabooday waan ku hambaleynayaa arrinkan markaa imika cuqaasha meel kastaba marka la joogo dee wasaaradda daakhiliga laga maamulaa marka ay hadlayaan waxay yidhaahdaan cid wax noo soo qabataan weyn anigu taa ma qabo cuqaasha iyo caaqilkii 60kii 50kii 40kii joogay maxay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala gedisan yihiin caaqilku waagii hore wuxuu odhan jiray kan ii soo qabo kan ii soo xidh kan iga qabo kan jeelka gee caaqilka maanta wuxuu ku mashquulsan yahay kan xabsiga ka soo daa kan jeelka ka soo daa kan waa kii wax dilay oo mag baanu ka bixinaynaa kana caynkan aanu samaynaynaa waanu la soo hadalnay laba shay weligeed iyo Allah socon maayaan waxaan wada socon karaynin nabadgelyana waynu doonaynaa ninkii xumaana ma ogolin inaynu nabadgelyadii ka qabanno waanu haynaa waanu baadhnay cilmi baadhis baanu ku samaynay kaysaska gobol walba ka taagan baanu ururinay waxaanu gaar u soo saarnay inta qof ee aanada loo dilay maxaa qofkii aanan loogu dilay nin baa nin dilay waa laga heshiiyey waa la sii daayey reerkiiba isma kala bixin magba muu bixin
waxaynu u baahannahay markaa cuqaasha waa madaxdii dhaqanka ee bulshada mas-uuliyiinta ka ahaa aniga maalintii xilka laygu wareejiyey 2,000 iyo dhowr boqol oo caqil baa laygu wareejiyey waa inta wasaaradda daakhiliga ka diiwaan gashan ee wasaaraddu ay aqoonsan tahay ilaa 1,000 iyo googo aan wasaaradda ka diiwaan gashanayna maxaan ku dhahday magacyadoodu way yaalaan hadda imikadaba wasiiradayda halkan jooga xafiisadeedii waan ka nimi laakiin xafiisadeedii waa nala socdaan hawadaan naloo soo marinayaa halkanaanu ku haysanaa warqaddii halkanaanu ku saxeexaynaa halkanaanu waxaanu odhan dayno waxaa ka bedel dabadeedna waa la keenayaa waanu saxeexaynaa waanu diraynaa halkaasaa laga shaabadaynayaa dabeedna waa la kala wada diraya beridha waxaa laga yaabaa in intaana laga gudbo tegaynaa barasaabka iyo meeyarka iyo yagooriya bay tegayaan qolada reer yagoori galabtaanu ballansannahay waxaa laga bilaabay inaan wakhtigii naga lumina laga bilaabo maanta berita saa dambe waxaynu diyaarinaynaa goobta diyaarinteedii qolada deegaanka ee reer laascaanoodna ayaamihii hore waana ka is aragnay war baanu idinku soo celinaynaa bay wasiiradeedii nagu yidhaahdeen laascaanood wixii aan labadaa ka ahayn kaalinta aad nabadda ka qaadanaysaanna waanu idin arkayna waanaanu joognaa kaalintii hore lama qaadanina laakiin maanta la rabaa in kaalintii la qaato kharashkaa wax ka bixinaysaan goobtaa joogaysaan doodda iyo hadalkaa wax ka gelaysaan qolada wax kharibtaa cunaha kala qaban goynaysaan dee maxaa saasay dadku ku dhaqmi jiray dee hab dhaqankaasaynu lahayn